saaxiib yaa soo dhawaada 48 saac ee lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada aad u qabsaday ninkay dhahaan Najiib oo u shaqayn jiray shirkadda weyn ee Astaan ila daawada videogan 23 kun oo sidoo saa u daawanaysa ciyaartan Azul Sports ka daawanaysa dhamaantiin waxa tihiin dulmadiid sida hadda halka u jeedaan 23 kun oo qof waxay daawanaysaa Azul 5 kun waxay daawanaysaa Astaan sabab waxa uu ah ninkii saameynta lahaa ee magaca maamuuska lahaa waxa waa Azul xaggeeda ayuu aaday shacabkii Soomaaliyeed oo dhameystirna waxay aadeen dhanka iyo Azul maxaa keenay Najiib ka dambeeyay Astaan maalinka ay Najiib burisay dagaal aysan ka bixi karin ay faraha la gashay Soomaalida sida dulmiga ma jeclo haddii mar lagu dulqaato marka lagu dulqaato mar afraad ma lagu dulqaadanayo Najiib halaan leeyahay Astaan halaan leeyahay Najiib aan ku horeeyo Najiib shirkaddan oo intaasoo milyan dollar qiimaheedu uu joogo dhulka ka taagtay suncadeedii ay dishay dadkii oo dhan ku kacsan suuqeedii ay xirtay attentionkii oo dhan ka qaaday dadkii oo dhan ku soo jeedisay hal wariye oo maanta Astaan joogo oo codkiisa si fiican loo dhageysan karo ma jiro hal mid ogow Soomaali way ku garab istaagtay magacaad ku yeelatay saameynad ku yeelatay ha noqon Shamuuri tu ha noqon aniga waxaan u jeedaa adiga hadda waxa lagu eeday maalinkii dhaweeyay Astaan shaqada ay ka bun waxa lagu eeday inaad abtooy tahay aniga hadda waxaan u jeedaa haddaan ka taxadarin horta marka waxaan ku leeyahay waxa lagu sheegay oo ina wax abays iska daa haddaan iska diin karinna la dhoomo waxaan u jeedaa in lu fangareen doono lacag badan lagu bixin doono adigoo xashiish iyo qashin iyo baqti iska buuxiyay oo hawada ku maqan in video laga keeno taasna waxay noqon doontaa midii ugu horeysay oo suncada dhulka ay ku gasho Soomaalida sida qof cabtooy ma jeclo maalinkii adoo wax abaaya adoo si wax ka yihiin ama adoo wax ka qaldiin lagu soo dhigana suncadaada maalinkaas ay dhulka gali doontaa Soomaali oo dhan way ka guuri doontaa waxayna ku dhihi doontaa awalkiiba anaga cabtooy u amarnay raalaha naga aha Astaanay ay u noqon doonaan hadda leefka ku saaran attentionkii shirkaddan had burburisay albaabada u laabtaniyo nin yar matiid shirkaddan albaabada u laabtay oo suuqa haysan jirta 10 sano la soo dhaaf waa inaad taxadar yeelataa meesha wax ku cabayso waa inaad qarsataa waa inaad foojignaataa saaxiibadaada kugu dhow kuwaas lagu soo adeegsan doonaa kuwaas video ka keenan doona maalinkii video qaldan adoo wax cabay ama ka dhacsan lagu soo duubana markaas ay kugu dambayso anada waxa waay nasaaxa wada timaan ku sheego hadaa iska dhaafi karto wax iska dhaaf hadaa iska dhaafi karinna taxadar yeelo ma yeelan weyse qof eeyaysa malahan Shamuuri tu adaa ka dar doono Shamuuri isaga waxa waay social media waxa aqoon ma u lahayn ay social media ana aqoon u leedahay laakiin wax lagu yeeday waxay ahayd in activity lagu ciiday marka ceebtaasi wax sadiiq lagu soo jiiday ka taxadar waa ku sheegay halkaas aan ku dhaafo Najiib iyo arigiisa Astaan halaan leeyahay Astaan dhalinyaro badan oo magac iyo saameyn bulshada ku waa buriseen waxaan arkay hadda iga master iga ninkay dhahaan oo warbixin ka sameeyay arkay waxa waay gabadhii monimiska dhahaan waa la buriyay baabajiya hadda kor waa la buriyay ninkii sheeg faraska mid wax waa la buriyay lahay inkastoo aniga ka soo xigtay iga aan ka soo xigtay ninkay dhahaan Najiib waa buriseen bulshadii saameynta dhan waa buriseen laakiin hadda idinka soo dhisay hadan idinka iyaga sabab u noqon doon inay idin dumiyaan sababtoo ah hadda saameyn ku leeyihiin bulsho badan ku xiran baraha bulshada saameyn ku leeyihiin marka dhibaato hadaad geysataan noloshiina waxay ku xiran tahay oo kaliya social media qof noloshiisa social media ay ku xiran tahayna in uu kicin sameeyo ma ahan war kicinta hadaad joojin weysaan wixii aad ka dhaxshaan cid aad weydiinaysaa ma lahan wallahi dadka iska sii jeediya waa isku soo jeediseen hadda iska sii jeeday waa dhowdiin hadaa mid kale daa burisaana xitaa waxa maqlaayay ninka hadda oo inuu galkiisa miiska uu saaran yahay xariif magaalo in asalantigiisa hawada in lagu cunro qof kasto oo idinka magac sare ama saameyn leh oo idinka soo dhistaan hadaa burisaan bariiskiina jeerow gali doona shirkadiinana shirkado kale ayaa suuqa soo gali doona oo ka faa'iideysan doona hadda ninka ay leeyihiin Najiib waxa xaaba ka dhiganayo shirkadda Azul asad ninka wax faa'iido isaga ma noqonayo ninka dhaqaalaha badan haysta isaga ma noqonayo laakiin magacii uu haystaa laakiin wuxuu u shaqeynayo shirkadda Azul u shaqeynayo qof kale isaga naftigiisa xaaba ka dhiganayo
bari marka isdagaalaana waa naftigiis waa la burin karaa wax weyn maahan marka shirkadiina maadaama shirkad ay weyn tahay dadka u dhimriya wax u sheega waaniya kicinta aan sameeysan iska dhaaf hadii kala shirkadiina dhulka ay geli doonta beemal sheego karo dadkii caanka ahaa haduu in ku soo jeestan baraha bulshada TikTok markaas aan u kala furtid idin kale idin wareejino ciwaanka idin ku weena Facebookana waa la idin ka jabsadaa ma run ay been waxay tahay ma ogiyay saaxiibayaal saan wax ka bedela ciao noloshaada hal markuf hana niyad jabina isgeli naf hadduu boorku soo gaarana iska jaf waxaad aragtaaba ha siisan daf si kastoo lagu dhaho uf maalin baa lagu geli doonaa saf barafku maahan dhagax waana lagu daqri karaa qof waqtigu waa seef haddaadan siinin gaf aduu ku siin doonaa baf dadka mooda inaan fool xumahay filter la'aanta ku fool xumahay mooda filterka igu yaqaana soo wada baxa wax aan ka baqayo mal anigu sagas bagas oday waa eedaday taas waa eedaday waa maay aniga ma hadaan jagas bagas maxaa ka dambeey ayeeyday waa inna warni qoftaan wallahi billahi adeeg oo qofa maam waa guuleysatay wajiga waa qurxoon yahay kal iyo laab sidaas aad ku fiican tahay guuleyso والله الدنيا حالكي كذا ما ذوي لابد كل 25 دبيقيسي بشي توانات waxaa marxaati kana oo gobjoogaal kana hay Astaan Sports iyo Azul Sports in ay baaquli boy afkiisa isku dagaalayaan warka soo baxa oo kaliya ay ku xiran tahay bariiska ama ilmahooda biilkooda adduunyo halka wallahi sana ma dambaysi baaquli boy guuleyso saan هذه جر waxaan soo gudbinaa waxyaabaha dadka ay xiiseeyaan sida wararka sheekooyinka iyo madadaalada hadii ay Soomaali naga codsato video gooni in aan ka soo hadalno heegan waxa uu ahay in aan ka soo hadlo videogaas hal subscribe aad noo saarto iyo hal follow aad noo soo dhahdo waxay nagu dhiirigelinaysaa in aan wax fiican oo qurux badan aan soo gudbino fadlan ha ilaawin in aad follow noo soo dhahaysiin share gareysid guuleysta